kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha qadarinta iyo xushmada iga mudanow kuna soo dhawaada youtube-kayga maamuus media production waa mar kale iyo saaxiibkeen cabdiraxmaan sheekh yuusuf cabdiraxmaan j haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar janalkan sidoo kale gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha koobaad ee gudoomo muuqaaladayada iyo waxyaabaha aan halkan soo geliyo si aan u laba jibaaro inaan idiin soo badiyo muuqaalada iyo warbixinada xiisaha leh ee aad ka maqsuudaan daawashadooda mar weliba subscribe-ta ha kuu saarnaado janalkan waa tahay daawadayaal intaasi haddii aan kaga soo noqonno arrimahaasi weliga ma ku fikirtay qofka ugu foosha xun dadka in uu yeelan karo xaasas fara badan amaba haweeney in ay ku dhiiran karto in guri ay la yegleesho haddaba waa cajiib godfrey boguma oo u dhashay dalka uganda ayaa mihirsaday xaaskiisii saddexaad iyadoo warbaahinta dalkaasi ay faafisay sawirro lamaanahan iyagoo aroos ah 47 sano jirkan oo horay u jebiyey rikoorka qofka ugu foolxun adduunka sanadkii 2002 isagoo ku guulaystay abaalmarino aad u fara badan godfrey boguma islamarkaana naanistiisu tahay sebabi taasi oo la micno ah qofka ugu foosha xun caalamka ayaa ah aabba dhalay 8 ciyaal ah waxa uu ku nool yahay deegaanka nyazanga ee gobolka luwengo ee dalkan bariga afrika ka tirsan ee uganda foolxumadu ma aha qofka oo midabkiisu yahay madow balse dadka ku xeeldheer daraasyadyadan waxa ay ku micneeyeen inay tahay qofka oo leh wax kasta oo aan farxad gelinin dhaayaha amaba uu qofka dhibsado arrintaasi ayaa noqotay mid ay siyaabo kala duwan ooga hadlaan dad badan maadaama intooda badan ay la fajaceen kalsoonida shakhsigan lagu tilmaamay inuu yahay qofka ugu foosha xun caalamka godfrey boguma waxa uu sheegay in markii hore uu caqabad kala kulmayey dadka oo ku maadaysan jiray qaab ahaantiisa balse uu noqday qof aad isugu kalsoon ka gadaal markii uu helay bilado ka turjumaya inuu ku guulaystay falxumada adduunka haddaba haddii aad la dhacday warbixintan fadlan subscribe saar janalkan si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya hela warbixinada iyo wararka aan halkan soo geliyo sidoo kale like saar muuqaalkan qaybta hoose ee kommentiga inoogu dhaaf faalladaada ama qoraalkaaga mahadsanid